بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وحلقة النيشانات وحلقاتكي كلماتك إنه كجسو هذا شيعة labadii darsi ama duruus labadii darsi u dambeeyay waxaan kaga soo hadalay si gaar ah shiicada isna cashariyada la yiraahdo ama firqada imaamiyada la yiraahdo ama raafida. shalay ama darsigii ugu dambeeyay waxaan ka soo hadalay aqaaidooda qayb kamid ah, gaar ahaan aqaaidooda xagga tawxiidka noocyadiisa kala duwan iyo quraanka kariimka waxaan insha Allah taala maanta ka hadli doonaa laba mawduuc. labada mawduuc oo ah aqaaidooda wixii inta muhiimka waxaynu hore uga hadalay mooyaane inta hadhay baynu insha Allah taala baynu wax ka taaban doonaa ama tilmaami doonaa. waxaan kusoo gabagabayn doonaa oo maanta majliskeena isagana aynu kaga hadli doonaa bal xukunka ahlu sunnuhu ama muslimiin culimada islaamku ay daa'ifadan ama kooxdan ay ku xukumeen waxyaabaha ama mawaadiicda muhiimka ah oo firqadani ay ku lumeen waxaa ka mid ah caqiidada ay ka aaminsan yihiin saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo fadligooda iyo waxa ku saabsan waxa ay ka aaminsan yihiin baa ka mida meelaha ay ku lumeen. nabiga calayhi salaatu wasalaam, walaalayaal, saxaabadii rasuulku waxa weeye waa jiilka aynu garanano oo ambiyada dabadoodii dadkii ugu khayr badnaaya. waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحبتيسي inay saaxiibo u noqdaan nabiyullaahi maxamed صلى الله عليه وسلم. waxay ahaayeen asxaab kuwii ugu khayr badnaa. alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa waa ku ammaanay. ilaahay subxaanahu wa tacaala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإلهي سبحانه وتعالى وحبة الماما يا إن رالي إلهي سبحانه وتعالى وكان نقضي. صحابة رسول صلى الله عليه وسلم ولا ليال وكوا مال كودا إيو نفهودا إيو وحكستو النفيسها إيو قاليها دينة إلهي سبحانه وتعالى أهري يجدك إلهي سبحانه وتعالى. صحابة أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام tadxiyada iyo islaamka waxay u soo horeen aynu garanano oo qiimaha lahaa oo maxay haddaba bal nimankan isna cashariya ama raafida maxay ka qabaan. saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay ka qabaan oo raafido ay ka qabaan saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay gaaloobeen oo ay diinta ka baxeen nabiga sala allahu calayhi wasalam gadaashi oo ay kufriyeen. waxay tilmaamayaan wax yar oo kooban ilaa 4 mooyaane saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay kufriyeen oo ay diinta ka baxeen nabiga calayhi salaatu wasalaam dabadii. sidaad ogsoontihiinna muslimiintu ama aimada ahlu sunnuhu waxay ku ijmaacsan yihiin saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam fadligooda inay taqaanaa fadligooda iyo qiimaha ay leeyihiin iyo fadliga ay leeyihiin bay ku ijmaacsan yihiin. imaam ibn taymiya rahimahullahu tacaala fi laamiyatihi waatuu lahaa xubu الصaxaabati kullihim lii madhabun ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل صادع لكنما الصديق منهم أفضل.
saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yihiin kulligood jacaylkooda madhabka xubu saxaabati kullihim dhammaantood jacaylka aan jeclahay madhab bay yihiin waana madhabka ahlu sunna wal jamaaca markaasuu wuxuu leeyahay waxay leeyihiin waxa weeye jacaylkooda iyo u dhowaanshahoodana waxaan ugu tawasulayaa ugu dhowaanayaa alle subxaanahu wa tacaala waxay leeyihiin dhammaantood fadli iyo qadar weyn markaasuu leeyahay laakinama sidiiqu minhum afdalu abubakr sidiiq radi allahu canhu baa ugu fadli badnaa imaam ibn abi daauud sheekh ibn abi daauud fi xaayatihi isaguna waa tuu lahaa markuu ka hadlayay saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqul khayra qawlin fi saxaabati kullihim saxaabada waxaad ka tiraahdaa kulligood hadal fiican walaa taku طacaanan taciibu watajraxu ha noqon mid saxaabada dura oo ceebeeya oo jaa'ifeeya ha noqon hada ma fahamti faqad nadaqa alwaxyu almubiinu bifadlihim waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadligiisa waxyi cad baa ku hadlay oo tilmaamay وفي الفتح آي للصحابة يمدح سورة الفتح أمانتي لغو أماني صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام يصفاتك ودي بترنيا سألات لقيت أهل السنة والجماعة صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام فضل قوداس بيقرسيه وحكو خلافة أرنتاس لمن كان 12 اللي يرادو وحيكو حكومين صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام قال نمو iyo inay diinta ka baxeen nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay aymadooda mid ka mida oo la yiraahdo tustari oo aymadooda waaweyn ka mida wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo ihqaaqul haq kitaabkaas wuxuu leeyahay kama jaa muusa lil hidaayah wa hada khalqan kathiran min bani israa'iil wa ghayrihim fartaddu fi ayami hayatihi wa lam yabqa fihim ahadun على إيمانه سوى هارون عليه السلام كذلك جاء محمد وهدى خلقا كثيرا لكنه بعد وفاته ارتدوا على أعقابه وليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام دينتي سيدي وحق أوليمي هداية ودد بدن وجهنوني ومتقان حق عيقاتين وغير بني إسرائيل حدنا إسقوا النور دينتي وقبحان وحوي oo ay diintii uga tageen sidaas oo kale ayaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam diin loo soo dhiibay diintii khalqi badan baa ku hanuunay laakiin bacda wafaatihi irtaddu laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu dhintay kadib diintii bay ka baxeen marka saxaabadii rasuulka alayhi salaatu wasalaam buu jeeda kulayni iyo ayaashi labadaba tafsiirkooda way ku tilmaamayaan saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam inay gaaloobeen oo diinta ay ka baxeen oo riwaayaad iyo waxyaabo fara badan oo been abuur ah ay keensanayaan bay ku tilmaamayaan saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay kufriyeen oo ay diintii ka baxeen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dabadii ay gaaloobeen markay ka reeb marka laga yimaado dhowr oo Salmaan al-Farisi iyo Abdul Ghaffari dhowr saxaabi oo iyagana asalka Faris ka soo jeeday oo tacasub iyo qayb waxyaabo la mid ah ay mataqaana ugu eelanayaan mooyaane saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta kale way gaalaysiiyeen waxa kamid ah waxyaabaha ku tusaya inay gaalaysiiyeen aynu tusaalayaal soo qaadanana kooban Aisha radiyallahu anha oo xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ahayd oo Abubakar Sidiiq gabadhiisii ahayd fadligeeda la garanayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyay oo la yiri rasuulka Ilaahay yaa dadka ugu jeceshahay Aisha bi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka xaaskaas oo fadligeeda hadda waxaynu soo koobi karnaahayn imaamu القحضاني في نونيته وحولها أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مظهرة الإزار حصاني هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إدهان صاصولها رضي الله عنها عائشة وكشيكين يا noocay ahayd iyo inay mid dahiran ahayd iyo xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam khayr bariya inay xaaskiisii ahayd mataqaanaa tii uu jeclaa oo ku wiil qabowsan jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam fadliga badan lahayd Aisha ka sheekeynaya marka mu'taqadka ahlu sunnuhu caasha ka qabaan waa kaas weey oo ahlu sunnati wal jamaa iyo asxaabta
dadka qalbiyadoodu saafida yihiin Caaisha radiyallahu anha waxay ka qabaan way oo fadliga lahayd waxay qabaan nimanka Shiica la yiraahdo 12 Caaisha xaqeeda Caaisha radiyallahu anha inay gaalowday oo diinta ay ka baxday oo ay kufriday bay qabaan kutubtoodana ku caddahay kutubtooda ay ku cadeeyeen Ayaashi oo kale tafsiirkiisa iyo majlisi fi bihar al-arwar iyo ahad min aymatihim al-burhan kitab al-burhan la yiraahdo dhamaantood waxay tilmaamayaan Caaisha inay kufriday oo tafsiirkooda waxay ku tilmaamayaan wala takunu kallati naqadat غزلها من بعد قوة أنكاثا آيات سوكله عياشي وحلي تفسير كيسا التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هي عائشة هي نكثت إيمانها تا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوكشي كي ولا يري حريقي دي أي مركي عاد كيسامي دب فرفرطي أو دب بابيصي تاس وعائشة رضي الله عنها بولي هذو إيمان كي دي دب بوليسي دب يوبح والعياذ بالله وحامسين عائشة رضي الله عنها إني نار تجلي دونتو أي أهل النار نقن دونتو وأي نار تجلي دونتو وآيات أسمك كهالليان فسرين تود الله 7 أبواب نار توني تضبع الباب ليه هاي بروح ورانا يا والباب السادس لعسكر بابك الباب كاللي حاد حكى جلس عايش وعسكر بيوي قانينو كتبتooda waxaad arkaysaa الشيطان iyagoo magacyada u adeegsanaya radiyallahu anha oo askar waxay uga jeeda waa kinaaya dagaalkii yawmul jamal waxa weeye gaadiidkii ay saareyd ayay waxa weeye ba magaca la oran jiray baa la yiraahdaa oo waa kinaaya Aisha radiyallahu anha halka looga kinaayonayo marka Aisha radiyallahu anha saas bay ka qabaan in aarta galaso in mataqaanay kufriday oo ay diinta islaamka ka baxday waxa kamid ah tusaalayaasha Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu oo labadooda baad garanaysan Imam Abi Daawud وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح والرابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح ولها وقل إن خير الناس بعد محمد وحتى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معتقد قال السنة نبي محمد دبدي صلى الله عليه وسلم وحدتك هو خير بدن لبدي وزير عمر يا أبو بكر رضي الله عنه طبعا أنه حتى عثمان سيد الراجح على السنة دحدود طبعا أن علي وحوي صدحته دبدي خير البرية دتك هو خير بدنها مركز صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام بوصي أماني وإنهم للرهد لا ريب فيهم وعوي على نجب الفردوس بالنور تصرح سعيد وسعد وابن عوف وضلحة وعامر فهر والزبير الممدح صحابة طوانك 10 مبشرين بفضل ذي وحيهين يبت الماما يا جنة سيور راح يسنيا كولا ليال وحي قبان أبو بكر الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنه يا عمر والله وضع بعد قرنا سان فضل ذي وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كوكولي يا أبو بكر مركو كهالي ثانية 2 إذ هما في الغار حوي وكي لبكوها النبي عليه الصلاة والسلام مركي كتشرين قدكي والنبي عليه الصلاة والسلام إن بدن وكسي إن الله رسولك عليه إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر باوحي صدق إلهي با يسو كندري طبعا بين لو بات هاي با ترادنا وبينتا أبو بكر با يرمي النبي عليه الصلاة والسلام لي وواصاني بنفسه وماله وحي حريري ويقول دوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه نفتي سي مالكي سبولي تضبطا والصحابة وخلق فربضا با وحي كسو إسلام قعميهيسا فاللي بدن بولها إن بدن بو حريي حوي وأصحابي قد قرنا صاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق ويصغنا إلهي إسلام كعسيي والنبي عليه الصلاة والسلام إن بدن أماني خليفك لبعض المسلمين تاها فضل جيسا علماء أي إجماع سيهين فضل أوليها قيمها أوليها أبو بكر الصديق رضي الله عمر بن الخطاب إسقى لبدو وحي كقبان إني قالوا بين وأي الدين تكبحان بيشيع قبان وحي مسيهين إن لنا على ذا إني واجبته waxay u samaysteen waliba adciyo iyo ducooyin gaar ah oo lagu caayo oo lagu nacradayo
ومتقنا روايات بين أبو رأي ودجستين أي صميين أي دهن وواجب أي صميستين عمر يا أبو بكر رضي الله عنه وكتبته ذا أي منصوص كتاب الله حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وحي كقبان عثمان بن عفان رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أكتيسا فضلق وكلها أصحاب القيمة وأكتيسا كلها أتقرن السان ذا النورين لبقى بلود النبي صلى الله عليه وسلم قبي رسولك عليه الصلاة والسلام ولها ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة بيانا كحشون إن الملائكة كحشوت رسولك صلى الله عليه وسلم وأتقى الناس وكم بدها باليري ضدك وحلا الميرات كبدن وجود يقصي السن رسولك عليه الصلاة والسلام دقال بدن مشاهد بدن كلا قيب قلي خلافة بعد أبو بكر عمر دبده ودقبتي أصحابي قيمها ومتوصن وحوي حليرا كثير قراءة وحامد هذا قرآن أخرس بدن وإلى مركز دنبه اللي دلي متقانا النبي صلى الله عليه وسلم لا سدح شير بجنة وبشاري مركز دنبه اللي دلي يسوي كتابك إلهي سبحانه وتعالى أخرية بين ننكي وحوي خوارج كهودلي صحابك النوع عاصا وحي آمسيهين إنه يهي منافق 12 أما الشيعة الإمامية وحي آمسيهين عثمان بن عفان كالنوع عاصا إنه يهي منافق وإسلامك وموجي سنيي قال لمن وقرسني وكتبته ذيك قرانته شيخ هذا نعمة الله الجزائري كتاب كيسان الأنوار المعماري حليه عثمان كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله ممن أظهر الإسلام وأبطن النفاق عثمان وحو كمدها عهد النبي عليه الصلاة والسلام ضدكي إسلام كموجستي كفر النفاق أي منافق نمدنا قرصدي شيوخ دودو علماء دودو أئمة دودو وحي واجبيان oo ku waajibiyaan atbaacdooda iyo dadka waxa weeye atbaacda u ah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu cadaawadiisa iyo cirdigiisa la banaysto iyo gaalnimadiisa in la aamido mid aymadooda kamid ah kitaab wuxuu ku leeyahay kutubtiisa inna man lam yajid fi qalbihi cadaawata li Uthman wa lam yastahil 'irdahu wa lam ya'taqid kufrahu fa huwa 'aduwullahi wa rasuluhu kafirun bima anzala Allah qofka qalbigiisa aan ka helin cadaawada Uthman cirdigiisa aan banaysan gaalnimadiisa aan aaminin waxa weeye waa cadawga Ilaahay rasuulkiisa waa kaafir Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dajiyay ku gaaloobay waxay kala aaminsan yihiin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu inuu yahay nin sida riwaayaadkoodii kutubtooda ay ku sheegaan inuu yahay nin islaamka wax qiimo aan ugu fadhiin oo wax uu cuno iyo fartigiisa iyo calooshiisa inta aan dhaafsiisnayn marka صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام وفضل جودات جرنا صان أو سنوا يكون إجماعين لما تابتان تاي فضل جودو وقف مسلمة أن لوجش كاين فضل الصحابة رسولك عليه الصلاة والسلام وكل جود عدول لها وقيمها لها وتشيل كيات جرنا صان 12 أما وحوي الرافضة أما الشيعة الإمامية وحكي قبان إني قالوا بين مركل لجربوا لو قف وقابن لما أنتوا وحي أمسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قداشي إني دين تكبحين تاسي وحوي وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يوحي كقبان وحا إن شاء الله تعالى يجنا تابن دونا دور كم إذا عقائد دوده وحكم إذا الشيعة وعقيدة لو عقيدة غيبة يعني أمسي أنت صحابة إنك قصوا بحنا عقيدة الغيبة ويوجد شيدان عقيدة الغيبة محي وجه شيدان وحي وجه شيدان إن إمام كودي لبي طبنا أما كوبي طبنات ويلو دلي ومحمد بن حسن العسكري لورن شري إنه مقيه وغيبة وقلي هرنا وحوي إنه قصو تلماني وأنا عقيدة أصل كذا غيبة iyo dad maqan inay dib u soo baxayaan adduunka ay dib u imaanayaan majuusiyadu ay aaminsanaayeen oo aqaa'id hore oo maxtaqaana majuusiyadu ay aaminsanaayeen way oo imaamkoodii marka 12aad oo Xasan al-Askari loo oran jiray wiil uu dhalay oo loo oran jiray Maxamed ibn Xasan al-Askari oo imaamkooda 12aadna ah ayaa waxay aaminsan yihiin inuu guriga aabihii god ah u galay halka uu ku jiro uu maqnaan doono dabadeedna xilli dambe uu imaan doono waana ka aaminsan yihiin inuu quraanka saxda oo shay shalaysan ka soo hadlanay uu hayo aqeedadaas
ay aaminsan yihiin waliba laba qiiba ay yiraahdaan qiibatul kubra iyo mataqaana ama ghaybatul kubra iyo afan iyo ghaybatu sughra laba qayb uu maqan yahay marka qaybadana way aaminsan yihiin in qof maqan uu dib u soo baxayo bashar oo uu dib u imaanayo oo quraanki saxda ah waxa kamid ah aqaayada ay aaminsan yihiin aqaayada loo yaqaano ama waxyaabaha ay aaminsan yihiin waxa kamid ah waxa loo yaqaano taqiyada oo taqiyadu waa qofku inuu muujisto inuu wax muujisto waxa ka bedelanna uu aaminsan yahay waa aqaayada waaweyn oo shiicadu ay aaminsan yihiin bay ka mid tahay oo qofku inuu wax muujisto waaqiciisa xaqiiqiga ah uu aaminsan yahayna waxaas aanay ahayn oo asal waa meesha ka keenan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu markii laga wareejiyay imaamada oo ay leeyihiin iyagu waa laga qaaday u taqiyeystay bay yiraahdaan على ذلك ما هين أبو بكر وعمر ينلو دورت إلا كنت تقي استعمال يدو حوي وقرصني سلات يدو حيقبان إن قفكو وحا وقبه وقرصن كره أين هو بنان تاينو موجسته وحانو قبين شرع الإسلامكو ملاك بنا يسوي مركب نفط الغفران أيوه كلاي الكفر اللي قلنا واقع هذه قلبك على إيمانك وقرصني لكن يو وعقيده كتبته ذا ay ku tilmaamayaan oo baab iyo abwaab iyo waxa weeye canaawi fara badan bay kaga hadleen imaam al-Kulayni kitaabkiisa kaafi oo kale wuxuu ku leeyahay wuxuu samaystay baab leeyahay baabu taqiya rasuulku ku sheegay xadiis fara badan oo baabka ku taqriirinayo qiimaha ay leedahay wuxuu ciwaan buu la baxay baabul kitmaan markaas waa xadiis fara badan keenaya marka taqiyada way qabaan marka qaybo badan oo kamid ah waxa arkaysaa iyagoo bilaada ahlu sunnuhu ay ka taliyaan ku sugan waxa ahlu sunnuhu muujisanayaan laakiin baatinka waa ka shiico waxyaabaha la sheegay waxa kamid ah ahad min ahli sunnah waxa uu guursaday gabadh dabadeedna gabadhu waxay muujisanaysaa muctaqad ahli sunnah ilmahay u dhashay markay u dhashay buu yiri ilmihii waxa lagu dardaarmay lagu yiri waxaad u bixisaa Umar dabeedna uu yimiyo wuxuu ku yiri ilmaha magac baa rabaa inaan u bixiyo markaas waxay tiri maxaad u bixinaysaa Musayyid Umar markaas ay soo bood oo gabadhii xanuunsanaysay oo dhibaataystay tay soo bood isla yaab loo soo bood way tii magac kale aad u bixisid baad weyd halkaas waxa ka soo baxday inay shiica ahayd marka kuwa badan oo shiica oo dadka ku dhex jira waxay isticmaalaan qaacida la taqiya inay wixii qarsadaan oo aymadoodu waxay tilmaamayaan inay waajib tahay shiicadu taqiyadu bal iska wadhaaf rukni iyo usuusha islaamka mid kamid ah inay tahay oo salaada iyo mataqaana soomka iyo xitaa qaybtood ay leeyihiin way ka ajar badan tahay ka fadli badan tahay inuu taqiyo qofku sameeyo masalada aynu shalay ka soo hadlanay oo ah quraanka taxriifkiisa iyo tabdiilkiisa iyo taqyiirkiisa may aaminsan yihiin ha mutaakhiriintooda iyo mutaqaddimiintooda way isku waafaqsan yihiin laakiin waxay isticmaalaan taqiya oo waxay muujisanayaan in ahlu sunnaha la mowqif yihiin laakiin madhabka saxda ah xaqiiqiga ay qabaan waxa weeye waxa loo yaqaan waa inay qabaan quraanku inuu taqyiir iyo taxriif ku dhacay waana meelaha dad badan ay ku dagmaan oo qofku yiraahdo shiicadu waxa ma qabaan marka aqaayadadan ay isticmaalaan taqiyada la yiraahdo marar badan iyagoo hadlaya oo waxa xaqiiqada ay qabaan waxaan ahayn muujisanaya waa arkaysa marka qofka la macaamilaya ama shiicada raba inuu ogaado inay aqaadadan isticmaalaan aqaadadan ay leeyihiin faahin fara badanna way leedahay kutubtooda ay ku sugan tahay oo aad bay u isticmaalaan tusaalayaal fara badanna waa laga soo qaata waxay leeyihiin nimankani oo aqaadadooda faasidka ka mid ah ciido aan islaamku sida nabiga kaleey salaatu salaam inoo sheegay laba ciidood buu ictiraafsan yahay waa ciid muslimiintu laba ciidood bay leeyihiin waa ciidul adha iyo ciidul fidri nimankani laakiin waxay leeyihiin ciyaad iyo ciido kale oo aan islaamku qabin waxa kamid ah ciid ay yiraahdaan ciidu qadiir ama qadiiru kham oo maalinta 18aad bisha dilxijja ay qabtaan waliba waxa la yiraahdaa ciidul fidriga iyo ciidul adha iyada uga qiimo badan way ka fadilaan ciidul akbar bay ku magacaabaan way soomaan maalintaas ama haddaynu si kale u dhigno ma aha ciidan ay maalintan sameeyaan waa ciida
ومالنتي غدير ومال كتها لتشير العربية marka waa maalintii bay aaminsan yihiin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nabigu wilaayadiisa iyo inuu wilaayada xaq u leeyahay khilaafada uu tilmaamay bay aaminsan yihiin oo nabiga marka kadib laga dhacay Ali ibn Abi Talib waxa kamid ah ciid Nayruuska waa ciyaada asal furuska iyo majuusi ka soo jeeda oo asalka ahaa macnihiisana waxa la yiraahdaa waa maalin cusub oo aqaayid kale waa aqaayida faasido asal ka soo jeeday marka waxyaabo kala duwan bay ka aaminsan yihiin نيروسك وأول الزمان الذي ابتدأ الفلك فيه بيرهدان ولبا الشيخ الخميني وكله وحفظ وذابال إلى بجواز الغسل والصيام في عيدي غدير والنيروس لوضع مع المودين بنانتهاي عيد غدير كي عيد النيروسك إن لوضع الصوم ولا غبيستو ولا يسد ياريو كتاب كيسا تحرير الوسيلة وكنت الماما يا عيداس بكا عيدهاس بيليه محكمة عيدها إليه عيد اللي يقانو بابا شجاع أو عيد يكون يان أو يقول بالدجان دلكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيكي مجوسي قبل اللؤة المجوسي دلكي عمر والدليبي ويحوي بيمتقانا يقول بالدجان وما ننتاس حوي وحي الشيغان أنا يتاي وحي ما ننتاس وما ننتاس تسجالات وبشر ربيع الأول يوم المفاخرة يكون مقعابان يوم التبجيل يوم الزكاة العظمى يوم البركة يوم التصليع وحاصل ما يكون مقعابان حفلات واوين بقبطان وحوي ما ننتهي يقول بالدقيان دلكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميركي مؤمنين تولى بعض عمر بن الخطاب تفدق سكرنا سامبا وحمالين أي واسطيستين دلكيسي ما ننتهي للدلي هذا ما فهمتي وشلنا واتين صوت من عمل نكاس دلي سويني يعني كتب توصي هذا عيد قدام بيسا وإليه ويوم العاشوراء ما ننتهي عاشوراء ومالنت سجالات وبش محرم مالنت waxay qabtaan xaflad waaweyn oo ay ugu tacsiyeynayaan dilkii Xuseen ibn Ali radiyallahu anhu oo tacsi iyo murugo bay maalinta qabtaan oo ciidaha waaweyn bay kamid tahay xasan iyo murugo maqtalka Xuseen ibn Ali radiyallahu anhu ay ka murugoonayaan waxay aaminsan yihiin oo kale oo kamid ah waxyaabaha shariicada ka soo horjeeda ee sunnah kuwa ay ku khilaafsan yihiin nikaahul mut'a gabadha in muddo kooban la qabo habeen maalin wixii la mid ah in xilli lagu heshiiyo bil baynu isqabanaa maalin baynu isqabanaa habeen baynu wada jooganaa nikaaxaas bay qabaan waliba aad bay fadaa'ishiisa u faahfaahiyaan oo sheegaan oo mataqaana isugu dhiirigeliyaan oo mataqaana qofka nikaaxan mutcada la yimaada shariicada islaamkuna way diiday oo ma ogola faahfaahin fara badan bay u baahan tahay nikaaxul mutcah bal waxaaba la yiraahdaa xadgudubka ay ku xadgudbeenayeen meelaha ay gaarsiiyeen fadaa'isha waaweyn bay ka dhigeen oo in dumarka furuujtooda ay banaystaan oo xaaraantaasi ay ku dhacaan wuxuu leeyahay shuruud xataa waxay gaadheen guurkaas ama nikaaxa mutcuhu cindooda agtooda male weli looma baahna markhaantiyaal looma baahna wax kale looma baahna shardi waxa uu gabadha lala nikaaxul mutcaha lala gelayaa inaanay nin kale uusan qabin xurmadiisa aanay ku jirin un baa shardi ah bal iskaba dhaafay waxaa la tilmaamaa inay xitaa ay leeyihiin gabdhaha yaryar oo 10 jirka ka yar xitaa in Khomeini oo kale uu fatwooday in mataqaanaa lala tamattu lagu sameyn karo oo waxaa leeyahay lala sameyn karo nikaaxul mutca lala sameyn karo oo mid ka mid ah aimmadii waaweyneed oo amaamadii raggii culimada ahaa oo markii dambana ka soo baxay oo Sayyid Hussein la yiraahdo kitaab lillahi thumma litaariikh qiso ka sheekeynaya Khomeini ku dhacday oo gabadh yar afar jir ah oo ku sameeyay waxa weeye tamattu ku sameeyay aqaa'id faasid oo xagga nikaaxa xataa waxa caqiidooyin adag baa jiro ay qabaan in dumarkii oo kale meesha Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelihi aanu banayn oo duburtii waxa la mid ah looga galmoon karo nikaaxaas marka bay qabaan waliba faahfaahiyaan islaamkuna uu ka soo horjeedo waxyaabaha habeen baa la isqabi karaa bay ku leeyihiin maalin waxa weeye nikaaxa noocaas oo kala tusaalayaal badan uu leeyahay waxa kamid ah aqaayada ay qabaan oo iyadu waxa weeye aqaayada asalka ah imaam oo waliba la yiraahdo waa iftooda dhanba way isku waafaqsan yihiin ma taqaana imaamada inuu Ali ibn Abi Talib oo xaq u lahaa nimankan ka warramayna 12 waa nimankan hadda Iiraan u badan oo ma taqaana Iiraan u badan aqaayad fara badan oo kalena way jiraan way aaminsan yihiin laakiin inahaasi waa aqaayada ugu muhiimsan waxaan insha Allah ta'ala ku soo gabagabeynaa kelmadda ugu dambaysa ay noqon doontaa biidni Ilaahi tabaaraka wa ta'ala nimankan
بالحكم كود عقائد كلا waxa kamid tusal xajul aswadka waxay aaminsan yihiin in Kuufa talaga qaado xaramka Kuufa la geyn doono aba noocaas fara badan bay aaminsan yihiin laakiin taas waxa isleeyahay waa min aham aqaa'id ugu muhiimsanaa oo baadilka ah oo nimankaas ay aaminsanayeen nimankan culimada islaamka iyo ahlus sunnuhu miisaanka ay saareen xukunkoodu muxuu yahay nimankani culimada islaamka meel badan bay kaga hadleen si fiican baa looga hadlay xukunkooda waa laga hadlay laakiin insha Allah ta'ala maadaama uu majliska iyo maqaamku iska kooban yahay waxaan ku soo gabagabeyn doonaa ama tilmaami doonaa ama ku soo koobsan doonaa fatwadii Sheikh Ibn Baas la weydiiyay nimanka Shiicada waxa la weydiiyay Ibn Baas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ilaahi subhanahu wa ta'ala hu naxariistay hal yajuusu takfiiru shiica shiicada in la takfiiriya ma banaanta sheekhu marka rahmatullahi alayhi jawaabtan buu bixiyay وهي الشيعة أقسام وأنواع ذكرها بعضهم 22 نوعا يعني فرقة لكن الباطنية منهم كالجعفرية والإمامية أتباع الخميني 12 هؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم رافضة خصوصا قادتهم وأئمتهم الذين يدعون إلى الشرك بالله وعبادة أهل البيت ويغلون في علي ويعبدونه من دون الله وفي الحسن والحسين ويرون أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون هكذا النصيرية وهكذا الإسماعيلية هؤلاء من أكثر الناس الغادة والأئمة منهم والكبار Ibn Baas rahimahullahu ta'ala ma la takfiirin karaa ama la gaalaysiin karaa baa lagu yiri nimanka la yiraahdo 12 ama shiicada ma la gaalaysiin karaa wuxuu yiri shiicadu waa aqsaam iyo noocyo qaybtood culimada ay ku sheegaan 12 firqo inay gaaraan laakiin buu yiri baadiniyada ama jacfariyada ama imaamiyada ama 12 nimanka la yiraahdo atbaa'ul khumeyniya khumeyni waa ninkii taqaanaan oo qaydkii Iran kuwaasi shaki kuma jiro way kufrigooda inay gaala yihiin nimankaas waayo maxaa yeelay waa raafido oo waxa weeye gaar ahaan aymadooda iyo qaadadooda iyo dadka hogaamiyayaashooda aymadooda diinta hoggaanka ugu ah kuwaas oo shirkiga dadka ugu yeedhayay iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo cibaadada ahlul bayt inay caabudaan ku cadgudbaya cali oo mataqaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala sukadii cali ibn abi talib caabuday iyo xasan iyo xuseen oo arka aymadu inay qeybka og yihiin waxyaabaha maqan ay og yihiin macsuumiin inay yihiin hadii laba ku roon yahay oo sheeganaya buu cali inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yahay marka waxa la mid ah buu yiri iyaguna nusayriyada iyo ismaaciiliyada kuwaasi waa min akthar الناس buu yiri iyagu aymadoodu marka tilmaamaya nimanka noocaas oo atbaa'ul khumeyni 12 la yiraahdo inay in mataqaana madhabkooda aymadooda ku aymada cilmiga leh oo aqoonta leh oo qaadada iyo aymada hoggaanka diinta inay kufriyeen wuxuu marka sheekhu rahimahullahu ta'ala amma aamatuhum fahum juhalaa ضالون لكن أئمتهم الكبار وعلماءهم يعرفون هذه الأمور ويعتقدون هذه الأمور نعوذ بالله ومن أضل الناس وأبعدهم عن الهدى نسأل الله العافية وفيهم شيعة لا يغلون في أهل البيت ولا يعبدون من دون الله ولا يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ولكن يضلون ويفضلون عليا ويقولون علي أفضل من الصديق وأفضل من عمر هذا غلط وجهل ومعصية لكن ما يكونون كفارا يكونون عصاة ويكونون مبتدعة ولا يكونون كفارا إلا إذا غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله وقالوا في علي وأهل البيت أنهم يعلمون الغيب أو أنه يجوز عبادتهم من دون الله أو قالوا أنهم أفضل من الأنبياء وأنهم فوق محمد والأنبياء كما يقول الخميني في رسالته الحكومة الإسلامية عليه إمامكم أما شيخ الإسلام ابن باس
أما عامدو دميا وجهالدا كوا عامدا ويجو جهالدا كواسي oo waxba ka garanayna runta arrimaha si fiican u garanayna iyaga la gaalaysiin maayo waxba la gaalaysiin maayo iyaga laakiin waa juhalo waa usaad waa ahlu bidع laakiin iyaga gaalnimo la gaarsiin maayo laakiin kuwa arrimahan xaqiiqada amurahan aaminsan oo garanayo cilmiyan oo aaminsanaya oo Khomeini iyo ragiisu kamid yahay sida Khomeini uu kitaabkiisa uu ku tilmaamayo al-xukuuma al-islaamiyya wuxuu leeyahay aimada iyadu uu leeyahay sheekh rahimahullahu ta'ala sida uu sheegayo aimada iyadu waxa weeye waxay gaareen mansila aanu gaarin marag la soo dhaweeyay iyo nabi la soo diray midna mansila aanu gaarin bi aimada iyadu gaareen buu leeyahay markaasuu sheekhu rahimahullahu ta'ala waxa uu leeyahay marka u dambaysa وحكام إيران اليوم من أضل الناس وأكثرهم لمن كان أنت إيران حكومة وقوة ضدك وجباد إنما بدن وجكفر بدن وإن تظاهروا بالإسلام نعوذ بالله إسلام هو مجتين بوير حوي وإنما كوجا لأنه هو دعاة بوير وحي ضدك ودعاة بشركة يحمانتا يخير ده ضدك بويره ولاصت القول ابن باز رحمه الله تعالى هذا الكيس وحكم موضة والله رنكرا إنه ليه هاي نمانكاس أئمدود يتذكروا ده متقانا علمي قاله وبرامج كان عقائد بعض الكعبة أهل السنة أكتوده وقالوا وحوي دين تروي كبدهن أما عامتهم يتذكر شهادة ده وبرامج كعصني وعصاد كأهل البدعة ويجا كفر لقوا حكومي مايو قلب كاس إن شاء الله يفتوى ده اسم بس بإنه كيكافتو منا أهل السنة هنا فهمتي وتفصيل كأهل السنة إجليان ويجا لفتكوا ده باشيوين كف شيعة فرقة كوا باتشرا المعتقدات كان نمان كان قوان إن شاء الله تعالى عن قبل السيدية ضاي كم يتهاي أهل السنة أولو كوا كسي حنا ويبقى قوان النصيرية دي إسماعيلية دي وإحنا من كان وحي قوان كسي حنا باقي بتوض قبتها إن شاء الله تعالى قل ياها أنا مركل هذا نشان السيالة بين التلمام الدونا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين